Assalaamu calaykum. Waa maxay sababta ay biyaha muhiim ugu yihiin nolosha? Waxaa jiro dhowr sababood oo muujinaya biyaha la'aantood in aysan nolosha shaqayn karaynin. Haddii aad doonaysid in aad ogaato sababahaasi, ka bogasho wacan. Biyuhu si aan la difiri karin waa udub dhexaadka nolosha. Waa cunsur aad muhiim u ah. La'aanteed nolosha sidaan ognahay way joogsan doontaa jiritaankeeda. Marka laga soo tago taas, biyuhu waxay ciyaaraan doorar dhinacyo badan leh si ay u joogteeyaan una kobciyaan dhammaan nolosha noolaha oo ay ku jiraan aadanaha. Halkani waxa ah qodobo dhowr ah oo ku saabsan sababta biyaha muhiimadda ugu weyn ugu leeyihiin nolosheena. Qodobka koowaad, cabista biyuhu waa lagama maarmaan. Jirkeenu wuxuu ka kooban yahay qiyaastii boqolkiiba 60 biyo, taas oo ka dhigaysa fuuq celinta. Fuuq celinta ayaa ku soo xasuustay waxaa jira saddexdan eray in ay la fahantaan inta aanan topigeena hore usii gudagelin. Dehydration, rehydration, hydration. Dehydration macnaheedu waxa waaye fuuq bax. Qofka marka uu fuuq baxo. Rehydration waxa waaye fuuq bixi ku dhacay oo ku waayay electrolytes iyo biyihii jirkiisa ka baxay in dib loogu celiyo. Hydration ayaa soo hartay. Hydration macnaha hadda saxa af Soomaali ma hayo laakiin waxa uu isticmaali doonaa inta aan ku jirno topigan fuuq celin. Fuuq celintani ma ahan kan oo dehydration qof marka ku dhacay rehydrationka loogu sameynayo oo kale. Fuuq celintani waxa waaye qofka asiga oo caafimaadkiisa tamaam yahay in uu biyaha asiga cabi karo oo jirkiisa asiga fuuq celin karo. Marka waxaan filayaa inaa ila fahantaan saddexdan eray. Laakiin mawduucina inta ugu badan wuxuu ku soo laalaaban doonaa hydration. Hydration ayaan ka hadli doonaa. Hydrationkana sida idin sheegay waxaan ku micneyn doonaa fuuq celin. Mawduucina aan dib ugu soo laabano. Haddii jirkeena qiyaastii uu ka kooban yahay boqolkiiba 60 biyo, taasi waxay ka dhigan tahay fuuq celinta shuruud aasaasi ah oo lagu ilaalinayo howlaha jirkeena. Unug kasta, tissue kasta iyo xubin kasta oo jirkeena ku jirto waxay ku tiirsan yihiin biyaha si ay si fiican ugu shaqeeyaan. Laga soo bilaabo habeynta heerkulka jirka ilaa saliidaynta kala goysyada iyo bixinta nafaqooyinka, biyuhu waa rukunka hababka jirka amaba tiirka hababka jirka. Labo, waxay fududeysaa nuugista nafaqada. Biyuhu waxay u adeegaan sida dhexdhexaadinta aasaasiga ah ee qaadida nafaqooyinka muhiimka u ah iyo oksijiinka unugyada iyo tissue jirka oo dhan. Haddii aan la helin biyo ku filan, nuugista nafaqada waa la dhimaa, taas oo keeni karta arrimo caafimaad oo suurtagal ah iyo cillado. Saddex, waxay taageertaa dheefshiidka. Biyuhu waxay muhiim u yihiin dheefshiidka iyo burburinta cuntada habka dheefshiidka. Waxayna kaalmaysaa kala diridda nafaqooyinka waxayna hubisaa dhaqdhaqaaqa siman ee cuntada iyada oo loo marayo habka caloosha iyo mindhicirka. Biyo kugu filan oo aad qaadato waxay kaa caawin kartaa ka hortagga calool istaagga waxayna kor u qaadi kartaa joogteynta caafimaadkaaga. Afar, ka saaridda sunta iyo qashinka. Kiliyaha, beerka iyo xubnaha kale waxay ku tiirsan yihiin biyaha si ay uga saaraan sunta iyo waxyaabaha qashinka ah ee jirka ka yimaada iyada oo u marayaan kaadida, dhididka iyo saxarada. Fuuq celinta kugu filan waxay taageertaa shaqada hufan ee hababkan soo saaridda muhiimka ah. Shan, waxay ilaalisaa dheelitirnaanta pH-ka. Biyuhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta dheelitirka pH-ka ee jirka iyada oo hubinaysa in dareeraha jirku ay ku jiraan xadka ugu fiican ee shaqada unugyada. Biyuhu waxay ka hortagaan acidosiska ama alkalosiska, kuwaas oo saameyn xun ku yeelan kara caafimaadkaaga. Lix, waxay kor u qaadaa caafimaadka maqaarka. Fuuq celinta saxda ah waxay lagama maarmaan u tahay ilaalinta caafimaadka iyo maqaarka dhalaalaya. Biyuhu waxay fuuqeeyaan ama fuuq celiyaan maqaarka gudaha iyada oo ka dhigayso qoyaan, jilcan, adkaysina leh. Maqaarka inuu qoyaan noqdo, mid jilcanna uu noqdo, sidoo kalena oo adkaysan karo. Fuuq celin la'aanta ama fuuq baxa wuxuu keeni karaa qallayl, barar iyo gabowga maqaarka oo degdeg ah. Toddobo, waxay nidaamisaa heerkulka jirka. Biyuhu waxay u dhaqmaan sidii qaboojiye dabiici ah iyaga oo kaa caawinaya in ay habeeyaan heerkulka jirka iyada oo loo marayo habka sida dhididka iyo uumiga. Inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jireed ama soo gaaridda deegaan kulul, fuuq celinta kugu filan ayaa muhiim u ah ka hortagga cudurrada kuleylka la xiriira. Sideed, waxay taageertaa shaqada garashada. Xitaa fuuq baxa fudud wuxuu wax u dhimi karaa shaqada garashada oo ay ku jiraan feejignaanta iyo xasuusta waqtiga gaaban. Markaad si fiican u fuuq ceshato waxaad wanaajin kartaa shaqada maskaxda oo aad kor u qaadi kartaa waxqabadka maskaxda. Sagaal, waxay kor u qaadaa waxqabadka jirka. Haddii aad tahay ciyaaryahan ama aad si fudud u doonayso in aad firfircoonidaada ku raaxaysato, ilaalinta fuuq celinta ayaa lama huraan u ah
waxqabadka ugu wanaagsan ee jirka. Fuuq celin la'aanta waxay ku horseedi kartaa daal, murqo xanuun iyo dulqaadkaada oo yaraada, taasoo caqabad ku ah awooddaada wax inaad u qabato sida ugu fiican. 10 waxay kor u qaadaa wanaagga guud. Marka laga soo tago faa'iidooyinka jireed, biyuhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kor u qaadidda fiyoobida iyo firfircoonidaada guud. Cabitaanka xaddi biyo ah oo kugu filan maalin kasta waxay kaa caawin kartaa in aad dareento tamar badan iyo in aad karti u leedahay inaad si firfircoon ula dagaalanto caqabadaha nolosha. Gabagabadii, biyuhu ma aha keliya baahida aasaasiga ee waa nuxurka nolosha lafteeda. Adiga oo garanaya muhiimadda ay leedahay in aad fuuq ceshato oo aad samayso dadaal miyir leh si aad mudnaanta u siiso qaadashada biyaha, waxaad kor u qaadi kartaa caafimaadkaaga, tamartaada iyo tayada guud ee nolosha. Sidaa darteed, cab biyo kugu filan waqti walba. Halkaas ayuu inoogu egaa ciwaankeena. Waxaa inoo ballan ciwaanka xiga hadduu Alla idmo. Khayr badan.